waxaana diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin dadaalada dib u habeynta ciidamada qaranka iyo sidoo kale qorshaha la xiriira diiwaangelinta ciidamada kala duwan ee qaranka si loo hubiyo ciidamada in la kordhiyo tayadooda iyo tababaradooda isla markaana loo helo diiwaangelin rasmi ah oo ciidamada la xiriirta sidoo kale shirkan waxaa diiradda lagu saaray amaba looga dhageystay oo hay'adaha amniga ee dowlad goboleedka Galmudug xaaladda amni ee dowlad goboleedka Galmudug caqabadaha jira iyo culeysyada dhanka amniga la xiriira iyo kaalinta ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka gaaraysanayso dadaalada dib u habeynta ciidamada iyo dib u xoreynta goobaha ee cadawgu haysto ee Galmudug ra'iisul wasaaruhu wuxuu ballan qaaday in dhawaan uu bilaabi doono qorshe la xiriira sidii loo xoreyn lahaa goobaha ay cadow gacanta ku hayaan oo uu sheegay in xeebaha ugu dheer hadda Soomaaliya oo ay shabaabku ka taliyaan in ay ka tirsan yihiin Galmudug isla markaana dhawaan ay u howlgeli doonaan sidii u xoreyn lahaayeen sidoo kale waxaa la xusay in deegaanada la xoreeyo in ammaankooda lagu wareejin doono ciidamo booliska oo isku dhafa oo ka kala imaanaya maamul goboleedyada oo dhan iyo dowladda federaalka Soomaaliya